Ma maqashay mise marna maankaaga ma ku soo dhacday ilmo ayaa dhashay hooyadii oo meyd ah ilmo ayaa dhashay hooyadii oo qabriga ku jirta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkaad nagala socotaan waa channelka Somali Islamic TV. ku soo dhawaada mowduuc muhiim ah. Intaan mowduuca u gudbin, haddaad channelka ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato, aad share garayso asxaabtaada, la wadaagto barnaamijkan iyo qisadan. Waxaan ku soo gudbinayaa qiso laga yaabo inaadan horey u maqlin. qiso laga yaabo markaad maqasho inaad cajabto, aad ula yaabto. qiso aad qariibsato, ilaa aad isdhahdo talo waxani ma been baa mise waa run. aan idin bilaabo qisada. ninbaa wuxuu u yimid amiirulmu'miniin Cumar bin Khataab radiyallahu ta'ala anhu ardaah. ninkaasi wuxuu watay ilmo uu dhalay oo wiil ah. Cumar baa wuxuu la yaabay ninkan iyo wiilku wata say iskugu eg yihiin, isku shabahaan. Cumar baa wuxuu yidhi: wallaahi ma ra'aytu مثل هذا اليوم عجبا ما أشبه أحدا أنت وابنك إلا كما أشبه القراب القراب. الله كدارتي بودي عمره مان أرق بودي مانته سيدا آنو ليابي مان أرق قف أؤيك قف كله سيدو ويلكاغو أدقو كوغو إيجي هاي مان أرق إلا سيدو تكوه تكاه كلوغو إيجي هاي مويالي. عربتنا markay tilmaamayso inay dhahdo wax hebel iyo hebel buu eegyahay, baxay oran jirtay sida tukaha uu eegyahay hebel ugu eegyahay. hadalka markuu yiri amiirul mu'miniin Cumar bin Khataab radiyallahu ta'ala anhu ardaa, hadalkii waxa qaatay ninkii Cumar u yimid. wuxuu Cumar uu ka waran hadaad ogaan lahayd ilmahan say hooyadii ku dhashay iyadoo meydahoo dhimatay. فغير عمر من جلسته وبدل من حالته، وكان رضي الله عنه وأرضاه يحب قرائب الأخبار. قال: أخبرني. عمر با جلسديسي فدغيسي بدلي، حالديسينا وو بدلي. عمرنا وحوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحيابها قرائب كامد جعل. عمر وحور إيه وران أو وركيسي نيكو وحور أمير المؤمنين كان زوجتي أم هذا الغلام حاملا. زوجتي وويلكن هو يدي وحي هي تؤور له حاملة. أنونا وحن قوان صدقين سفر قلو عن بحوه ويدي دي أمركي أن الباب كقالي بي إسواقبة وحينا يقتلي سيديباد إيغا تغيسا أنيغو أور له. kadibna halka caloosha intaan gacantii ka saaray baan waxaan idhi: ilaahayow ilmaha caloosha ku jiraan kuu dhiibtay oo kugu aaminay, waana tagay buu yidhi. ilaahay muu qadarin oo alle iimuu qadarin inaan dhaho ilaahayow ilmaha iyo hooyadii baan kuu dhiibtay oo kugu aaminay. ee ammaanadu ilaahay u dhiibanaya wuxuu ku khaas yeelay ilmihii yaraayoo keliya. waan tagay buu yidhi, safarkaygii baan galay. waxaan safar ku maqnaa intuu alla doonay inaan safar ku maqnaado oo hawlahaygaan soo dhammaystay. kadibna waan soo laabtay buu yidhi. waxaan imid albaabkii gurigaygoo xidhan oo qafilan. carruurtay eedooyinkay dhaleenna ama adeeraday ay dhaleenna ay gurigii ku hareeraysan yihiin. waxay iiga warrameen oo ii sheegeen inuu xaaskaygii ay geeriyootay oo ay dhimatay kadibna la aasay. faqultu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. da waxaan dhaho ma garanayo, waxaan idhi waan istirjaacsaday. waxaan idhi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. wuxuu yidhi kadibna hablihii waxay bilaabeen eedooyinkay ay dhaleen inay cunto ii sameeyaan oo cunto ii diyaariyaan. فبينما أنا على العشاء إذا بدخان يخرج من المقابر فقلت: ما هذا الدخان؟
waqtiguuran cashadii hor fadhiyo waan cashadii la joogo ba waxa soo baxay qiiq ba maqaabirtii qubuurihi ka soo baxay hablihii baan weydiiyaan ku uri qiiqanu muxuu ahaa waxay ugu jawaabeen qiiqani waa qiiq ka soo baxaya qabriga sawjadaadii iyo xaaskaagii laga bilaabo maalintii la aasay ilaa iyo hadda ayuu qiiqaasi soo baxaya